runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu halkan ku soo dhaweyno shirkan looga hadlayo hindisa sharciyeedkan lagu lafagurayo xeerka shirkadaha. waxaan rajaynayaa inuu guul ku dhammaado. xeerkan muhiimad weyn buu u yeelan doonaa qaabka ay shirkadaha Soomaaliya ka howlgala u shaqeeyaan. wuxuu noqon doonaa uniform ama mid isku mid ah oo shirkadaha waddanka dhan lagu dabaqo. wuxuuna qayb ka qaadan doonaa ganacsigeena. wuxuu qayb ka qaadan doonaa maalgashiga. waxaan rajaynayaa labada bari oo inoo socdo discussion-kan inuu si guul leh noogu soo gabagaboobo. waxaan rajaynaynaa inaynu ku lafagurno xeerkan wixii aynu ku dari karno, waxaynu ka reebi karno intaba waynu guda gelaynaa. marka labaad waxaan soo dhaweynayaa dadka martida oo Puntland yimid ku soo dhawaada waddankiina, ku soo dhawaada Garowe. waxaan rajaynayaa labada maalmood ay joogtaan inaad ku raaxaysan doontaan hawada macaan iyo maaragtay xilligan waa la dhaafay xilliga kuleylka oo qabow baa jira. marka waa idin soo dhaweeynaa, gurigiina waa timaadeen, marti ma tihidin. waxaan rajaynayaa shirku inuu saa inoogu socon doono. waxaan ku soo dhaweynayaa hadda wasiirka warshadaha iyo wasiir ganacsiga warshadaha dowladda federaalka Mudane Cabdullaahi Cali Xasan. salaan dabadeed runtii sharaf weyn iyo xushmad iyo qadarin ayay inoo tahay inaan maanta halkan u fadhino shirka wada tashiga hindisa sharciyeedka dhismaha shirkadaha ama maamulka shirkadaha ama company looga. muhiimad aad u weyn ayuu waddankeena u leeyahay. waxyaabaha runtii dhaliyay in la sameeyo waxa ugu weynaa inuu muhiimad aad u ballaaran uu u leeyahay kobcinta dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo shaqo abuurka iyo maalgashiga dalkeena intaba. runtii sharcigaani wuxuu sahlayaa ama fududeynayaa diiwaangelinta shirkadaha waddaniga ah, diiwaangelintooda, maamulkooda, xeerkii lagu hagi lahaa. wuxuu kaloo maxaa la jiray inta badan uu sahlayaa inay dhammaan shirkadaha iyo maalgashayaasha shirkadaha iyo milkiilayaasha iyo macaamiisha iyo dadweynaha intuba uu u fududeeyo inay helaan xuquuqdooda iyo bay'adda intaba. runtii wuxuu noqonayaa ama sharcigaani sahlayaa Soomaaliya inay ka mid noqoto suuqyada adduunka sida WTO, COMESA, EEC ama East African Community iyo wixii la mid ah. wuxuuna waxtar u leeyahay horumarinta dhaqaalaha iyo soo jiidashada maalgashiga shisheeye iyo kan gudaha intaba. runtii diyaarintiisa waxaa markii hore iska kaashaday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. wuxuu soo maray marxalado kala duwan. waxaa lala kaashaday runtii oo dib loo eegay oo aad loogu kuurgalay sharciyada wadamada islaamka ama ganacsiga, kuwa wadamada adduunka, iyo inuu la jaan qaado ganacsiga xorta ah gaar ahaan kan casriga ah. waxaa lagu jaangooyey oo runtii maxaa la jiray inuu noqdo sharci heer federaal ah oo lagu talagalay inuu ka howlgalo waddanka oo idil, looguna nidaamiyo diiwaangelinta shirkadaha waddanka dhammaantood si looga ilaaliyo isqabsiga iyo magacyadooda iyo sumadaha shirkadaha, loona abuuro hal diiwaangelin oo waddanka dhan u dhaxaysa. waxaa diyaarintiisa runtii ayaguna dhaqaale ku bixiyey bangiga adduunka oo aan aad ugu mahad celinayo. wuxuu bilaabmay sharcigu golaha wasiiradu waxay ansixiyeen 2018 laakiin waxaan aqalka sare u gudbinay
bishii Juulaay 13keedii 2019 waxaana soo jeedintiisii koowaad ama akhrintii koowaad la sameeyey 23kii isla bishaas Juulaay 2019 aqalka sarena waxaa lagu wareejiyey muxuu ahaa 24kii bisha runtii waxaan isleeyahay sharcigaani waa sharcigii koowaad ee ganacsiga iyo dhaqaalaha maadaama dalkeenu uu ku xiran yahay dhaqaalaha xorta ah ama suuqa xorta ah runtii ganacsiga Soomaaliyeedna uu ku socdo si isxilqaana oo iskaa wuxuu qabsaa oo ganacsatada Soomaaliyeed ay ahaayeen kuwii dalkan runtii door libaax leh ka ciyaaray kuwii badbaadiyay kuwii uu soo dhabar adeegay kuwa maanta muxuu ahaa boqolkiiba muxuu ahaa 90 hagaaya ganacsiga wadanka gudihiisa waxaa markaan la joogaa marxaladii Soomaalidu ay muxuu ahaa alxamdulillah heerkan la joogo loo gudbi lahaa heer dunida inteeda kale runtii aan la jaan qaadno waxyaabaha markana la weydiinayo haday noqon lahayd ama dalalka aan danaynayno ama suuqyada inaan galno Soomaaliya oo kuwa dibadda iyo dalalka aan rabno inaan heshiisyo ganacsi la galno gaar ahaan dalalka hadda muxuu ahaa Soomaalidu ay ama hore u lahaa jirtay intay dawladda ahayd ama hadda ay doonayso inay suuqyada galaan ama dawlad ha noqoto ama suuq ha noqoto intaba waxyaabaha la isku xiraayo oo shuruudo ah waxa weeye wadankaani ma leeyahay sharciga shirkadaha ama company lowga waxa weeye marxaladda koowaad annaga gudaheena ayuu u yahay laga maarmaan u yahay marxaladda labaadna wuxuu laga maarmaan u yahay wadankan sidii loo maalgasho lahaa sidii ganacsigii muxuu ahaa Soomaaliya iyo dalalkii aan dariska ahayn ama kuwii muxuu ahaa alxamdulillah xiriirka soo jireenka ee ganacsi naga dhaxeeyay ama kuwa hadda aan doonayno inaan ganacsi la yeelano intaba in wadankan lagu sameeyo maalgashi oo joint venture ama muxuu ahaa ganacsi ka wada dhaxeeya Soomaalida iyo shirkadaha adduunka ama dalalka intuba waxyaabaha ay eegayaan waxa kamid ah ugu horeeya sharcigan kamid ah hore waxa baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay sharcigii maalgashiga shisheeye laakiin waxaad moodaa inuu kan mudnaanta lahaa sharciga koowaad buu ahaa runtii 2 sano ayaa laga shaqeynayay wada tashi fara badan ayuu soo maray haday noqon lahayd garyaqaan guud haday noqon lahayd dawladii xukuumadda dhexdeeda haday noqon lahayd rugtii ganacsiga iyo warshadaha oo ayaduna dalkoodan muxuu alxamdulillah ka wada shaqeynaysay haday noqon lahayd wasaaradda muxuu ahaa noo qaabishan muxuu ahaa xagga sharciyada oo ah wasaaradda cadaaladda intaba Soomaali inteeda badan wada tashiya la sameeyay laakiin waxa soo dhan waxa ka muhiimsan kan aan maanta u fadhin oo ah in aqalkii sare oo wakiilka ka ahaay shacabka Soomaaliyeed ama dawlad goboleedyada iyo wasaaradihii ganacsiga iyo alxamdulillah muxuu ahaa madaxdoodii iyo wasiiradoodii iyo maamuladoodii iyo dhamaantood iyo wasaaradda ganacsiga intaba maanta inaan halkan u fadhino inaan soo gabagabayno wuxuu kamid yahay waxyaabaha marka hadii aan soo koobo adduunyadu ay nagu la xisaabtamayso annaguna aan ku xisaabtamayno waxa weeye Soomaaliya maanta waxay joogtaa marxalad ah inay dhisanto wax badan waa laga shaqeeyay waxyaabaha aan hadda isleeyahay oo qorshaha noogu jira wasaaradda ganacsi ahaan oo ugu weyn oo aan isleeyahay sharcigaani wuu sahlayaa waxaa kamid ah in shirkadaha Soomaalida dhammaantood loo sameeyo diiwaangelin casriya oo la jaan qaadi karta tan dunida wadankeenu sidaad ogtihiin wuxuu meesha ugu hooseysa uga jiraa habka ganacsiga loo bilaabo ama muxuu wax la yiraahdo ease of doing business waxa weeye sanad walba waxaan galnaa 194 waa meesha ugu hooseysa marka waxaan rabnaa inaan meeshaas meel ka duwan in Soomaalida muxuu ahaa alxamdulillah inay jaan qaado inay korto marka waxyaabahaas oo dhan waxaan rabnaa oo qorshaha noogu jira marka in diiwaangelintii shirkadaha dhammaan inay ka bilaabmaan dawlad goboleedyada
ama dowladda federaalka intaba waxaas howlahaasoo dhan waxaa aasaas u ah in sharcigaani uu noqo sharci hirgela oo shaqeeya oo dalka ka hirgala. waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha aan isleenahay oo nala weydiinayo markaan tagno heshiisyada ganacsi markaan gelayno, gaar ahaan waxaan hadda wadnaa inaan heshiis la galno dowladda Turkiga oo la yiraahdo TEBA ama Trade and Economic Partnership. waxaa weeye dowladda Masar, muxuu ahaa China, Malaysia, dowladaha dariska dhammaantood intaba hay-adaha caalamiga ah oo rabno inaan dib ugu soo noqono sida WTO iyo COMESA iyo muxuu ahaa East African Community iyo kan Carabta. intaba waxyaabaha la isweydiinayo waxaa weeye ma leedihiin sharcigii shirkadaha ma idin dhammaystiraya. marka guud ahaan dalkan faa'iido weyn uu sharcigan u yahay maanta. marka alxamdulillah sharcigan marka wixii ka dhinay sida gudoomiyuhu uu sheegay inaan isla lafagurno, isla muxuu ahaa alxamdulillah isla fiirino, dib u eegis ku samayno, wixii ka dhimanna aan ku darno insha Allah, wixii ku dheeraadana aan muxuu ahaa ka reebno. waa intaas halkaan isugu nimid uu noqdo sharci Soomaaliyeed. alxamdulillah maadaama baarlamaankiisu uu soo muxuu ahaa ka soo dooday, aqalka sarena ayaga naftooda uu soo dhaafay sida ka muuqato, laakiin ay wakiil ka yihiin dowlad goboleedyadii dalka. marka alxamdulillah waxaan noo taala shaqo adag labada maalin oo halkaan joogno. waxaan aad marka idinkaga mahad celinaa anigoo muxuu ahaa alxamdulillah aniga iyo wafdigayga iyo soo dhaweynta halkaan lagu soo dhaweeyay dowlad goboleedka Puntland, gaar ahaan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, xubnaha kale golaha wasiirada dowlad goboleedyada, senatarada aqalka sare iyo xubnaha kale muxuu ahaa aqalka sare halkaan la jooga, bada saxaafadda, dhammaan shacabka dowladda iyo shacabka iyo dadweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo dowlad goboleedyada kale halkaan la jooga dhammaantood sida ay isku xilqaameen in halkaan sharcigan lagu soo gabagabeeyo iyadoo muxuu ahaa howlo fara badan oo qaranku leeyahay horena halkaan dhidibada loogu aasay oo muxuu ahaa Soomaali ay u aayday. alxamdulillah waxaan rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi alkariim in wada tashigii sharcigan halkaan maanta aadaan idinku mahad celinaya dhammaantiin, waana mahadsantihiin. waana noo furan yahay kalfadhigan halkaan aan isugu nimid oo aan u wada tashanayno sharciga shirkadaha waa noo furan yahay. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.